السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا داوديال برنامجكي حقمال oo idinkaga imanaya Star TV xaruntaan ku leenahay London. Caawa insha Allah taala waxaan isku dayi doonaa inaanu ka hadalno waxa dhacday in ra'iisul wasaaraha Ingiriiska David Cameron uu xilli dhaweyto uu ku dhawaaqay in baaritaan lagu sameeyo ururka Islaamiga ama ururka Muslimiinta ama Ikhwaan Muslimiinka ee degan UK. maxaa keenay inuu yiraahdo xilligan baaritaan ha lagu furo ma waxay la ay tacalluqda arintaasi oo la xiriidha arrimaha ka socda Masar ma waxay la xiriidha Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Bahrain waliba khaasatan Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar lafteeda oo ku dhawaaqday in ururka Ikhwaan Muslimiinku ay soo rogeen inuu yahay urur argagixiso urur aan ahayn dhexdhexaad oo argagixiso ma waxay arintaasi la xiriidha calaaqaad ay doonayso inay ka samaysato khaliijka Carabta ah oo runtii aad mooday inay u soo jeesteen ururka Islaamiga ah ee inta badan jiray ilaa iyo imika in ku dhow qarni waxa asaasay ururka Ikhwaan Muslimiinka Xasan al-Banna oo ka asaasay Masar 12 dawladood ayuu ururkaasi fikirkiisu uu ka jira inkastoo ku kala duwan yihiin magacyada laftooda waxaynu ka wada warqabnaa daawadayaal in ururkaasi uu yahay urur ilaa Soomaaliya soo gaaray Somaliland jooga oo xilliyadii ugu horeysay waqooyiga ama xilligii waxa weeyaan maxay waqooyiga Soomaaliya iyo Soomaalida koonfurta way kala duwanaayeen oo islaax iyo waxa ka kala jiray waxdada laakiin imaka ururka islaaxa ayaa labada dhinacba ka jira muxuu raad ku yeelan karaa haddii David Cameron iyo dawladda uu markaasi horkacaya ay ku soo rogaan sida Sacuudiga Imaaraadka Masar ay ugu soo rogeen ururkaasi inuu argagixisan yahay raad intee leeg ayuu kaga tagi karaa inay kuwa kale ee xitaa reer galbeedkuna ay ku daydaan kadibna Mareykankuna uu ku sii daydo sida uu sheegay Saadin Ibrahim oo isaga laftiisu yiri Mareykanku uu soo wadaa inuu ururka Ikhwaan Muslimiinka uu argagixiso ka dhigo waa arrimahan doonayna inaan caawa ka hadalno arrimahaas iyo arrimo kale waxa insha Allah taala igala qayb galaya barnaamijka Dr. Faarax Sheekh Maxamed oo ah aqoon-yahan arrimaha Ikhwaan Muslimiinka iyo xarakaadka Islaamiga ah aqoon u leh ku soo dhawow Dr. Faarax Star TV caawa iyo London waxa aan doonayaa inaan ku weydiiyo maxaa arintan keenay xilligan inuu David Cameron uu yiraahdo baaritaan ha lagu sameeyo Ikhwaan Muslimiinka ku soo dhawow ahlan wa sahlan Cabdiraxmaan waan aad baan kaaga mahad celinayaa martigelinta qiimaha badan ee aad isiisay fursadda inaan uga hadlo mawduucan aad ka xasaasiga maanta mawduucan dhawaa jawaani fara badan buu leeyahay qayb siyaasi ah qayb dhaqaale ah qayb fara badan buu leeyahay sida ka muuqata ra'iisul wasaaraha waddankan Ingiriiska waxaad moodaa inay kaga timid cadaadin aad u fara badan dawladaha khaliijka iyo inqilaabka ka dhacay Masar bishii June 20keedii 2013 ma cadda oo hadda de kale waa arrimo iska secreta oo arrimo ma garanaysa aan aad loo ogaan karin bay u badan yihiin laakiin waxa la ogaan doonaa bisha July markii la gaadho resultiga soo baxa ayaa wax waliba uu aad u cadaan doona la ogaan doona Cabdiraxmaan okay laakiin maxaa keenay xilligan in David Cameron uu yiraahdo baaritaan ha lagu sameeyo in waxa aynu ka wada warqabnaa in baaritaankan uu hogaaminayo safiirka Ingiriiska John Jenkins magaciisa John Jenkins baa la yiraahdaa waxaana in hadallada kamid ahayd sida uu sheegay afayeenka in xafiiska ra'iisul wasaaruhu in uu horta bal ogaado falsafada ay ku shaqeyso Ikhwaan Muslimiinka in badan bay deganaayeen UK maxaa keenay xilligan inay yiraahdaan amba dawladda David Cameron ay tiraahdo baaritaan baan ku bilaabaynaa Ikhwaan Muslimiinka marka maxaa keeni kara xilligan ilaa iyadoo hore u yaqaaneen marka maxaa soo kordhiyay waa arinta la doonayay in la ogaado waxoogaa yar su-aasha haddii aan si kale u dhigno horta baarid baan ku sameynaynaa mayna odhanayna waxay yidhaheen David Cameron wuxuu yidhi falsafada ikhwaanku ay ku shaqeeyaan iyo isbedelada iyo tatawurka ku yimid ayaanu daraasaynayna ayuu yidhi intaa oo kale ayuu ra'iisul wasaaruhu yidhi guddida loo saarana intaas oo kale ayay xil saaran yihiin inay soo sameeyaan baaritaan in la baariyo la daraasayo baaritaan xagga af Soomaali ahaan Carabiga falsafada iyo waxa ay ku soo shaqeeyaan baa la soo ogaanaya ma garanaysa waxa ka dhiman doonta ma urur irhaabiyaba mise waa urur dhexdhexaad ah
taasi ka dhalanaysaa waxa keenay hadda waqtigan xaadirka waxa keenay inqilaab ka dhacay Masar ayaa keenay inqilaabkaasi wuxuu qaatay jawaani fara badan Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo dawlado kale oo fara badan ayaa support gareynaya inqilaabka ka dhacay Masar ee uu hogaaminayay militariga Masar inqilaabkaasi marka wixii waxa ugu badan hadda caqabada ku ay hortaagan waxay si iyagu u dhigayaan shacbiga Masar ayaa diidan sida daraasaad Financial Times iyo The Guardian joornaalo fara badan oo international oo caalami ay sheegeen 3 meelood marka loo dhigo 2 meelood dadka ka soo horjeeday inqilaabka ma aha dad ikhwaan muslimiina ee waxa weeye waa shacbiga Masarka laakiin inqilaabku wuxuu u dhigay in dadka ka soo horjeeda waxba ka qaban layihiin inuu yahay inay yihiin ikhwaan muslimiinka lama inkiri karo ikhwaan muslimiinka Masar sida iyaguba sheegeen inay dad aad u xoog badan inay yihiin malaayiin inay yihiin inay yihiin dabaqaadka dadka Masaarida ugu aqoonta badan inay dad dhaqaale leeyihiin dad aad iyo aad u horumarsan dad isku duuban oo xagga nidaamka iyo waxqabadka aad ugu horeynayeen lama diidi karo laakiin inqilaabka nimanka sameeyay ayaa waxay u arkaan inay ku yihiin maxaa kala galay UK amba Ingiriiskii iyo dawladda nimanka aynu joogno iyo inqilaabka ka socda Masar maxaa isku xidhay Ingiriisku mid taageersan yahay inqilaabka ilaan hadduu imika sida Sacuudiga iyo Imaaraadka ay taageersan yihiin inqilaabka su'aashaas la isweydiin kara laakiin inqilaabka maxaa ka galay Ingiriisku ilaa hadda ma cadayno inqilaabka taageersan yahay manuu waliba sida hadalladooda kamid ahayd markastaba wuxuu yiraahdaa xuquuqul insaanka la dhowro dadka la xirxirayaa la joojiyo يعني سعد بيان وسمعين لكن وإخوان المسلمين كمالك استوى مداهرات جرين مو هو يستاج جرين أرنت صحي موجسي إن هنو انقلاب شقود يعني شغل كلها هين لكن محاجرة يعني محاك هنا إنه هذا بارتان أرمك لما هون انقلاب كهان هين maya su-aashaad saas in loo dhigana waxaa nuurka cabdiraxmaan waxay ka baxsan tahay dariiqi saxa ay ku habboontahay dariiqi saxi waxa weeye maxaa keenay waxa keenay inqilaabka ka dhacay Masar ayaa wuxuu qaatay jawaani fara badan oo ku celcelinaya waxa weeyaan Sacuudiga ayaa taageeray Imaaraadka ayaa taageeray dawlado kale ayaa taageeray Ingiriisku ama ha taageero ama taageerin waxaa jirta magac baraaqa oo weyn oo adduunyada maanta lagula dagaalamo islaamiyiinta ikhwaan muslimiinku waxay ahaayeen kuwa ka nabad gashan magacaas ay ahaayeen ikhwaan muslimiinka oo xarakaadka ugu waaweyn adduunyada aynu ku noolay ka jirta ayaa lagu shaabadiyey meeshii ay ka soo baxeen asalka u ahaydna waa lagu shaabadiyey waxa keentay adduunku marka nin waliba isweydiiyo dawlad Ingiriis kaliya ma aha qof kasta oo mudaqaf inuu isweydiiyo waxaan la sheegayo ma wax jira mise wax been abuur in baaritaanka waxyaalaha ay sheegeen waxa kamid ah in laba arrimood ayaa la isu diray MI5 iyo MI6 waxa weeyaan arinta qaadanaya labadana waxa la siiyay laba shaqo in MI5 waxa la siiyay inay soo baaraan saddexda dalxiis waxa weeyaan lagu dilay in Taaba meesha la yiraahdo Masar February meel iyagoo dalxiis soo bas saaran ee saddexdaas dhinteen waxay leeyihiin link baa soo galay ikhwaan muslimiinka bal horta arinta ka jawaab arinta wax ma ka jiraan waa kala laba cabdiraxmaan haddii loo diray ninka Kooriyaanka ah iyo labada nin kale lagu dilay haddii la yiraahdo nimanka soo baar inay dileen ikhwaan muslimiinka inay dilin iyo in ikhwaan muslimiinku yihiin terrorism waa kala laba ikhwaan muslimiinku waxa weeye waa organization weyn waxay leeyihiin falsafad bay leeyihiin waxay leeyihiin leadership bay leeyihiin waxay leeyihiin manhaj ku shaqeeyaan bay leeyihiin waxay leeyihiin turath ama taariikh dheer oo jirta يعني كبدن 85 سنة أي ليهين. إنجليزكا الدنيا أردنا ويود أكتهي. صح. كم حدنا absolutely نلد له يجو تاريخ هذا دير ما ينقول جودي على هاد ما ينعل بلاش ما ينعد كدلين. صح. فلسفة ضوضة هي فكرة ضوضة أنا وحي كسور جدا قف بريئة وحكي طبها آمين سنة إن نحق له ولا هني لكن بارتان كويس واسيدنا ما أنكور ما يصيروا سيكس طبها تواسيدنا إسلام وقبوي فكرة صفضوضه إن نقف بريئة لدين دين كسبها رمزنا صح نك صائحين وحب بليه حقوق قوني وليه وأنا المستعمل الإسلام كما قرنا صح أخوان المسلمين مركا وحي كاندلاقيا أو يكدوا ليان قرآن كإلهي النبي كسيدو يلي قفك مستعملك أو أذيك كل جوجا أو أذيك أمانة كوا أو أذيك منقلية كوا إن لدى محرم ويعني نك هاد مركا دت كيدي لي طبعا إن إخوان هاي فلسفة ضد عدينيس مركا قيمة بدن مالي إن أي صوباران إن يسوق قادر إن يسوق قادر دفنت إن إخوان المسلمين كوا علاقة على مدار الناس وعلاقة على ملها لكن ويسود وين يا باركان كستال لو سمايو إيو ميل كستال البابود وفريهين
lawyerna way qabsadeen oo waxay yidhahdeen haddii in nalagu tacadiyana lawyerkaas ayaanu anagu maxkamadaanu adeegsanaynaa sida uu sheegay ninka halkan u jooga ikhwaan muslimiinka. laakiin su-aasha kale aan doonay inaan ku weydiiya waxay tahay masalan waxyaalaha kale MI5 loo diray sida yani afhayeenku sheegay in la ogaado bal yani waxaa jira markii ikhwaan muslimiinku iyo ay isku dhaceen dowladdii mursi iyo ay isku dhaceen iyo nimankan askartu ay meeshii ay ka qaaday wadaadadii ikhwaan muslimiinka iyo ururkoodii iyo dee dowladdiiba in yani caburin badan bay dareemeen waa kuwana usoo yaacay xagga qatar marka londonna way yimaadeen marka iyaga laftooda bal horta in la ogaado intay yihiin iyo inta hogaamiye yimi london iyada laftooda ku jirta baaritaanka marka maxay taasi u taraysaa inay ogaadaan taasi de macno badan ma dhalinayso haddii ikhwaan muslimku iyagaaban qarinayninba haddii ikhwaan muslimiinka masaarida laga yani ay ku wajahan tahay meelahay degan yihiin ladhan waa la yaqaanaa wax ay qabtaan waa la yaqaanaa qadarku mayna cararinaya waa niman mucaarado ah weeyani inqilaab xukunkii ay ku gaadheen doorasho xor ah oo adduunyada oo dhani ay qirtay muddo ka badan 4,000 oo sannadood weligeed masar kama dhicin wax doorasho la yidhaahdaa waxaan wada ognahay in ay faraacinadii inay ka jireen faraacinadii kadib muddo fara badan inay dowla masiixiya inay ka dhalatay waxaan wada ognahay in islaamku uu gaadhay cabdullaahi bin camar ibn caas inuu fariiqay masar inay ka talin jirtay dowladda islaamku muddo fara badan jawhar saqali faatimiyiinta inay isbedelo fara badan inay masar ay ka jireen taariikhda markaan hayno dowladdan casriga ee xadiidka ah masar kama dhicin wax doorasho la yidhaahda sidii ingiriiska looga qaaday boqor baa haystay boqorkiina wuu dhacay cabdinaasir oo dictatorship oo askari ayaa yimid waxaa ku xigay saadaad baa ku xigay waxaa ku xigay mubaarak baa ku xigay muddo 60 sannadood ama ka badan waxa wadanku ahaa uu ku jiray wax la yidhaahdo xukun military maxamed mursi marka wuxuu ahaa iyo ikhwaan muslimiinku waxay ahaayeen doorashadii ugu horeysay ee ka dhacda taariikhda masar ever weligeedii allaheed taariikhdii adduunya intikhaabaadkii ama yani doorashadii adduunyadoo dhan ay qirtay in ay sax ahayd ayaa si dhib yar lagu riday marka ikhwaan muslimiinka ma aha keligoode wax alla wixii damiir oo dhan ayaa diidan marka hogaamiyaashu hadday yimaadaan london waa caadi waa arrin baad leedahay waxa weeyaan wax dhibay keenaysaa ma jirto laakiin maxaa keenay in liiskaas aan ogaano inta qof ay yimaadeen maya mediada saas ma aha wax 40 sano ka badan ayay joogeen ikhwaan muslimiinku cabdinaasir markiina wax yar cabdinaasir markii uu la dagaalamay yani 40 iyo 1948 waa way yimideen 53kiina way yimideen way joogeen waxay ku leeyihiin sharikada waaweyn bay ku leeyihiin waa dad ganacsadayaal waa dad hanti badan leh waa dad muslimiina waa dad ka tarjuma islaamka sida saxa ah ee uu yahay intay ka garan karaan intay ka awoodaan soo garan mayso marka ma aha yani kuwa hadda yimid oo inqilaabkan ka yimid ayaa la baaraya ma arrintu intee bay kulli dowr ku leeyihiin wujuudkooda iyo joogitaankooda intee in la eg buu la eg yahay maadaama liiska hogaamiyaasha waaweyn ee ikhwaanka inay ogaadaan liiskooda intay yihiin marka maxay taas u macnaynaysaa waxay macnaynaysaa falsafadooda horta kow falsafadan ay rabaan inay si toosa dowladda ingiriisku inay ogaato inay meesha ay ku sal leedahay iyo dadka matala inay la xiriiraan ay ogaadaan way baahan yihiin kow tirakoob iyaga in lagu sameeyana waa loo baahan yahay la ogaado intay la egyihiin xajmigooda marka micno weyn ma dhalinayso maadaama ururku wuxuu ku taagnaa oo uu rumaysnaa la baadhayo waa in la helaa dadka sida dhabta u matala waa in la helaa dad cabiri kara oo ay xaqiiqada ay ka go'do waa in la helaa saad marka waxaa imanaysa dadka madaxda ka ah inay ogaadaan si ay si toos ula xidhiidhaan marka dadkii madaxda ahaa baad moodaa soo maaha yani sida wararka qaarkood ay sheegayaan waxay leeyihiin xafiisyo waaweyn bay ku leeyihiin london weliba kirkwood oo kale in halkaas aana markii yani mursiya ay isku dhaceen iyo nimankan askartu ay ka qaadeen xukunka mursiya jeel ku rideen yani meesha ugu weyn ee laga yani soo kicin jiray ikhwaan muslimiinka masar joogay meelaha kalaba london bay ahayd marka taa lafteeda ka waran dadka isweydiinaya su-aashaas london horta waa magaalo weyn yani magaalo adduunyada magaalooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay ummad kastaaba ama masaari ha ahaato ama ikhwaan ha ahaado ama soomaali ha ahaato adduunka ummad aan joogin dhan ma jirto inta ay la eg tahayna waxa og wanda dowladda xukunta wadanka og waxaa og MM5ta iyo MM6ta ayaa og ma garanaysa way og yihiin inta ikhwaan joogana way og yihiin meelahay kula nool yihiin way og yihiin wax ay qabtaanna way og yihiin in yani hadalkaa la yidhaahdaa waa mujarad wax la yidhahda mediada iclaanka oo kaliya weeyaan laakiin dowladdu way og tahay laa shaka fi dalik yani
laakiin miidiyada maxay markaa yani ay cabiraysaa in miidiyada la isweydiiyo la dhahdo yani ta'fiirka ay ku yeelan karto mar haddiiba masar iyo yani masar awal hore ikhwaan muslimiinka inta doonaan ba ha ahaadaan amba ha joogaan yemen fikirka kuwa aaminsan ama morocco ama meelaha kale ee masalan meel kasta ama soomaaliya lafteeda dee hogaamiyaashu waxay joogeen masar iminka hogaamiyaashii baa ku jira jeelkii mar haddii ku jiraan sida yuusuf nada uu sheegay hoggaan kale ayay magacaabeen laakiin hoggaankaasi ma lays odhan karaa waxaa u jooga london oo uu ka yani markaasi maamula ikhwaan muslimiinkii kale amba fikirkooda aaminsanaa ama iyaga laftoodii adduunka kale ee 72 dowladooda ee islaam iyo carabba leh ما تسوي شيء بس هو شيء عادي وتاس عبد الرحمن وهو يعني نينك هدو معارض النقطة والدولة حكمكو هي اللي قريدو صح انترناشونال ادون كورد ماشو دونو تجي كرا وحنا حقو لي ماشو دونو انو كو نولاادو مادام نفتيسا iyo maalkiisa oo halis uu ku jiro ma garanaysaa lana buu ku noolaan karaa Washington buu ku noolaan karaa New York buu ku noolaan karaa Tokyo ku noolaan karaa Kuala Lumpur buu ku noolaan lama garan kartaa si iyaga u baahan tahay in la weydiiyo xagee joogan hogaamiyaashu waa dad u baahan in ikhwaanka la weydiiyo tidaas soo garan meesha aad baad maasantay waxaan doonayay inaan hadaba aan u soo daadegno in sida aynu aaminsanahay ama aynu ka wada warqabnaba in Soomaali badan baa fikirka ikhwaanka in waxa weeyaan matalasha waliba aan qarsano website-yadooda iyo meel kasta ku qora waxa kamid ah imanka awal hore waqooyiga waxad baa ka jirtay waqooyigii xilliga hore la oran jiray waqooyiga Soomaaliya imanka Somaliland waxad islaamiya ikhwaan bay ahayd in islaahna ikhwaan bay ahayd laakiin imanka islaah baa jira iyagu laba magac kala sheegtaan waxa weeyaan dami jadiid iyo islaah caadiga hore laakiin waxaan doonayaa su'aashan doonayaan ku weydiiyaa waxay tahay hadiiba sida Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar ay Ingiriisku ay ku raacdo in ikhwaan muslimiinku ay yihiin niman argagixiso ah fikirkooduna uu yahay fikir argagixiso ah in maxay raad ku yeelan kartaa Soomaalidii aaminsaneed fikirka ikhwaanka meesha doonaan baa joogaan فيري عبد الرحمن يعني مسألة هرتا halka ma gaarsiisna meesha saraac waxa la isku hayaa waxa weey waa Masar weeyani صح Masarna waxa weey waa caalamka islaamka qalbigiisa weeyani صح صح waa halbowlaha ay ama xaga ay noqoto aqoonta ha ahaato ama hadda kasaafada iyo dadka intay la egyihiin ha ahaato 100 milyan bay Masar ku dhowdahay ma garanaysaa ama meelaha wax laga bartay ee waaweyn ha ahaato ama taariikhda ha ahaato marka Masar waxa weey meel asaasi weeyani marka hadda fakasku wuxuu saaran yahay ama diirada waxay saaran tahay waa Masar iyo ikhwaan muslimiinka ku nool weeyaan waana arrin siyaasi waxa ku cadeynaysa taas shalay toole ama daraad حازم الببلاوي رئيس الوزراء ماشي كتجي wuxuu yiri qaraarkani waa qaraar siyaasi ah صح qaraar siyaasi hadii hayna maxkamadu ba ama ka gaari karta decision ama ka gaari karin صح صح iyagii ba hadda qoorta uga jirta oo meel ka baxaan ay la yihiin ma garanaysaa marka maxay la leedahay Soomaaliya iyo adduunyada ikhwaan musu wax qarsoon ma ah in laga ma qari waa fikir caalami ah weeyaan waan islaam hadii argagaxsan lagu tiriyo marka cidii ku tirsa fiiri cidii ku tirsa wax ugu badan ikhwaan muslimiinka la dagaal Cabdi Naasir buu ahaa يعني رج وحد اللي بقولال بود عبد الناصر صح يعني يبقون يوجوغا يولي قلت يلا هود اسلام كنت جوغا اللي جوغا يعني تليفون قبطه الا هذا سؤال شيء كمان بيدعين لكن ku soo noqonaya ku soo dhawow telefoon bayna soo galay magacaaga halkaad ka soo hadlayso door raaliya علي شيخ عبد الفتاح عبد الفتاح عبد الفتاح ku soo dhawow عبد الفتاح انا سؤال ما نويدين لها waxaan leeyahay macnaheedu ahayn in nimankan ikhwaan muslimiinka oo kaliya ujeedada maahe in wixii muslim ah ee doonaya inay diinta si toos ah ugu dhaqmaan oon xarigeedii goynayn in dagaal lagu hayo bal nimankaa reer masriga haddii la eego makaan bal si cad ayay u badiyeen inay xukuumaddii dalka qabtaan tan xoog baa laga riday hase yeeshee nimanka reer galbeedkeeda imaka adduunkoodii iska noqday allaale wax leh barka jooga ama ka daaya ma jirto laakiin maalinta iyaga meelahooda ay wax yara ka dhacaan taa imaka ruushkood kala wada aragtaa iyo meeshan Ukraine kala haysata waa kuwa agajuglaynaya marka miyaan idin lahayn inay ujeedadu tahay ujeedada reer yaa muslim ana ahayn ikhwaan muslimiin aad baad u mahadsan tahay in
su-aasha wuxuu yihi ma aha wax ku saabsan ikhwaan muslimiinka ee waxa weeyaan in dadka kale muslimiinta magaciis muxuu ahaa muu sheegay magaciisa okay si kastaba ha ahaato waxaa muuqata inuu nin aad wax u garanayo si qodo dheer u fikiraya inuu yahay aqoon aad u xeel dheer inuu leeyahay xaqiiqaduna waa saa u sheegay weeyaani carabtu waxay tiri cabdiraxmaanow waxaa la i cunay fiiri يعني أكلت يوم أكل الثور الأبيض مثل ومثل يعني ما قرنا يصير واسيد الشيء أرنتو وأرن إسلام كسليس وإسلام نعيب وحكى عدي 1995 كي واحد قرن واكي ألجيريا إسلاميين تيكو قولي جبل الإسلامية ماشي مرتبة دكتهي دقالك كسعود سوريا وضد سعودها إخوان المسلمين كدورشة حرة الدنيا أردنا أي قرتة إني تهتي وصح سنيد وحلال سنيد أي كوكول يصير ملتري باك قاضي ملتري أنا وحى كدم بيا أو باق أبو وين وين كوكو صار نقضاء خد كلا كل شيء كل سودا ودا ودا هلك كسر هذا الشيء معايا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سودا ولا لو أنا كده وهاي برنامج كوله أنا نادل السعودين وهذا أنا لو أنا بقول بس أقول هذا ما يمكن وحير خير فهمي وحنا شيء كل شيء كذا مسلمين تيو محمد هذا يو قال هذا وده حيصدق تم مسلمين وح ما قاعد إلا الدونا بخلوا الشيء وإله سبحانه وتعالى وراث كوسي شيء ما قاعد إلا الدونا بقى كفار أمام حدا مناطق وشقينا وحدونا هو بحيو وحن لقولت قال لما يا وحوي قفك بالآدمي عمال بالله سمرة ماشى الله سمرة وحويان وهالكان وقلت لحسن تبى الله سمرة هالكان مسلم وقلت لحسنا مركي الله سبحانه وتعالى رجي مسؤولك وقد جاي هذا يكتب مسعود وكلام ببصهر وكلام عالم إسلام وكلام محبة كشيء الصومالي وكلام بدي مركي لا لا هم حامل هذا رجي يضمك مسلنا maxay dhahday wadadada lagu tooganay waxan waa silsilad ka soo bixna laakiin waxaad ogaataa tan diinta ilaahay baa ilaashanaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala azza wa jalla ayaa ilaalinaya waan inoo sheegay rasuulkana kaleey salaatu wasalaam wuxuu waqti way dhici doonta buu ninka qofka buu diinta haysta uu noqonayo qof xab dhimbil daba gacanta ku haysta marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuwa dhimbiisha dabka gacanta ku qabsada haynaga dhigo waana midoobaysa ilaahay baa kor yeelay qof jilicsan iyo qof nacas iyo qof kale iyo mid dawlad haysta waxa lagu la dagaalamayo waa wixii islaamka waxa dhigta maanta dhawata Ukraine halkan hadda waa dhageysanayay wallahi inaan been sheegin xaafad baan soo galay inaan yar oo sagaal jira ayaa wuxuu tisiga ishigay waxaan eegaya Ukraine baan eegay hadda waa sagaal jir ka waran inta islaamka dibadda ku dhacaysay labaatan jira guriga noo joogo wax ka hadlaya ma arag muslimka waxa ku dhacay alleelambar waxaan u maleynayaa 2010 ayaan markii ayaan maxaa dhahdaa uu siib dhacay bulsho uu yiri yahuudda ka sii argoosta meeshan muslimku degan yahay inta yare baabeeya markaas aan arka wax ka diidiya oo caruura yar aan Facebook-yada iyo emailada eegi jiray marka waxa weeye waxaan niyadeeda aan habeen deynin imanka muddadaas ilmo yar oo sagaal jir caruurtii sagaal jirada ahayd هذا هو بريمر اسكول كل كتير يحكي حضلية هلا يكفي بنا ورد يقولين واي محي تحي يجا كو عبستي لكن المسلمين في حلقة إلى عبادة لكن دين تكروي أهانسا ويدهم بنا أدون كانوا ضمبينسا يدهم بنا أهرينسا يدهم بنا وحكومسا ولقد يالله هاد عم بقالها حلو عم حالبا ور ير قدام بيدين كيدين كدام بيدين ير سداوي ما يوحها هون كده بروح يوري يهودا دقاليه محاها مريكان كان دقاليه وستينيي محادا هذا فلسطين وحن مصر كل حريبو إن محادا هذا يهود أو وحلو السماين صبت وحنا عاصو كلا كما سيحن حاليته لكن الله سبحانه وتعالى تنسك إلى شنية هذا يضم هالسنة هاي سلوى نعسن ما تقفونها كورورين لبعتر واحد كل دعسة أنكوا مسلم كشاجنا إسلهاس مريو يدوك النورانة والله هدوق في نورانة يا سلام حسين بنوران والله هدوق في نورانة سلام حسين بنوران لها وهلك ابن أي جاري هذا يضم هالسنة هاي إن كستو مقعد أنا نوش لكن هذا يضم هالسنة هاي سلوى نعسن أنا غلط قريب كشيء درت عاطفة وقاضي وحليه ما أرنتو أرن إخوان المسلمين سدا عن كفهمي لكن وأرن إسلام كلدونه إن وحلوية على يوم مركا أرنتاس وتكو تاجرسن يعني حكت السياسة دتكو يعني مسلمين تو في السيدة أي وعيقود ماشو قارسين هي السياسة
caalamiga ee shaqaynaysa say ula socdaan ninkii hore ee akhyaarta ahaa iyo gabadhanimo isku mid weeyani arrintu waxa weeyani ikhwaan muslimiin oo la ogyahay 86 sannadood inay jireen oo weligood aan la odhanin waxa weeyaan waa dad irhaabiyiin ah oo adduunyada meel Mareykanka ka jira oo Ingiriiska ka jira oo Yurub oo adduunka ka jira oo la ogyahay wax qoraalkooda iyo sida ay islaamka u dabaqaan iyo okay xagga kale iyagana lagu dad kale ay ku tuhumayaan inay yihiin gaal la shaqaysta iyo sheekada soo kala ayay hadda maanta leeyihiin waa gabadh waasay ninka khiyaarta hore iyo gabadhba ay sheegeen waxa weeye islaamka umba meel loo soo maral raadinaya ku soo dhawow daawade telefoonka qabanaya door haliya halkaad ka soo hadlaysay magacaaga halo assalaamu calaykum magacaaga ina magaciina noo sheegto man aad u jecelnahay si aan u ogaano halkaad ka soo hadlaysana waxaa la yiraahdaa Cabdi Maxamed Norway baan ka soo hadlaya ku soo dhawow Cabdi Maxamed wada socotaan filaya barnaamijka marka bal fikirkaaga soo jeedi doctorka wax weydiinaysana waa kuu furaya TV-gu may barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay ururka ikhwaanka u garta wuxuu ku saabsan yahay ururka ikhwaan muslimiinka ayaa David Cameron wuxuu bilaabay oo uu amray in baaritaan lagu sameeyo inta UK joogta baaritaankaasina uu ku tacalluqo yani falsafada ku shaqeeyaan yani in la qiimeeyo maxay qabtaan maxay yihiin in iyadoo markaasi uu yani doonayo inuu war laga soo saaro waxay yihiin iyo waxay qabtaan marka maxaa keenay baa la isweydiinaya xilligan inuu David Cameron yiraahdo arrinta ama wuxuu daba socdaa oo uu doonayo isaguna inuu raaco dariiqii ay mareen Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo dawladda Masar ee in ikhwaan muslimiinku ay argagixisan yihiin haddii ay sidaa ay tahay oo doonayaan sidaas ay ku dhawaaqaan maxay dhib inaga Soomaalida taageersan fikirkaas ku keeni kara barnaamijkaas ku socdaa aad iyo aad baan ku fahmay halo way maqlaysaa maamulka soo dedeji walaal waxaan u fahmay anigu horta sideeda qolyahan reer galbeedka la yiraahdo aad bay waxay u sheegtaan wax la yiraahdo dimuqraadiyad sax dimuqraadiyaddana ma aha sida ay iyagu u sheegaan oo dadka rabitaankiisa iyo hadba meesha bulshada codkeeda u bato in wax lagu maamulo ma ahan laakiin waxa weeye sida ay iyagu doonayaan ama cidda ay iyagu doonayaan hadday soo baxdo oo guulaysato waa dimuqraadiyad cidda ay diidan yihiin haddii ay soo baxdaana waxa weeye argagixiso iyo waxaan wanaagsanayn iyo waxaan mas-uul ahayn sax yacnaha dadkii reer Falastiin codkoodiibay waxay ku doorteen ra'iisul wasaare waa la go'doomiyo waad aragtay oo wuxuu marinka qasuu ku go'doonsan yahay dawladdii Falastiin baaba laba loo kala gooyay Masar baa dadkii codkooda dhiibteen way doorteen madaxweyne doorteen baarlamaan bay doorteen wixii oo dhan inta madaxa lagu socodsiiyay baa la xirxiray argagixisana loo aqoonsaday kulligoodna xabsiyada laga buuxiyay hatta caalamku kama hadlo ma yiraahdo war xuquuqda bini'aadanka kamid ma aha in qof madaxa oo dadku doortay oo aan inqilaabin inta ciidamo inqilaabaan lagu taageero sax marka adduunyadu hal dhinac bay ka raran tahay wixii islaamka sheeganayayna waxay noqdeen wax dadkaas iyagu adduunkii halka dhinac ka raray u kala adeega oo qofba nin u shaqeeyo ee aan u shaqayn wax muslimnimo la yiraahdo iyo wax cadaalad la yiraahdo iyo diinta Ilaahay iyada cadaalad ah islaamka iyo ikhwaanka iyo muslim oo dhan iyada cadaalad ugu filan laakiin adduunka dushiisa kama jirto hal taako oo shariicada Ilaahay iyo Ilaahay wuxuu inay yiri lagu maamulo marka maxay dhib ku keeni kartaa adiga Cabdi Maxamed Arabiya xataa ku dar adiga maxay kula tahay dhib ma keenaysaa bay kula tahay mise waa arrin yaro siyaasad oo hadhow iska dhamaanaysa maxay adiga ra'yigaaga kula tahay dad ka war hayso waa adduunyada horta dad iska xanaaqsan oo iska tiro badan oo iska caraysan oo waxaas dhibsanaya oo adduunka sidaas u dhaqmaya arkaya way jiraan oo waa waxa caalamka hadda ka socda carada waxa ka dilaacday sax laakiin anigu waxaan aaminsanahay adduun hal dhinac looga taliyo dee waxay iyagu ku taliyaan unbay hadda awoodoodu samayn kartaa waxaan anigu aaminsanahay cidda ugu mas-uuliyad xuni waa Mareykanka cidda adduunyada nuclear ku riday waa Mareykanka cidda wax bili aadana si xadaaf isaga layso khayru mas-uulnimo meeshay rabaan galaan
waxay rabaan weeraraan, waxay rabaan dilaan, waxay rabaan dhacaan, waa maraykanka. haddana waxay kuleeyihiin cid baa khayru mas-uulah oo cid baa magaciisiya iyo ingiriiska. marka dee waa adduunye hal dhinac ka raran. aad baad umahadsantahay. adduunyada halka dhinac ka raran baynu isaga wada noolnahay. wax islaam la yidhaahda oo maanta jiraana ma jiraan. oo saani u jirin dawlada islaami ma jiraan? dawlada islaami ma jiraan. meel ay ka taliyaana ma jirto. xaggee bay ka jirtaa dawladda islaamiga? sacuudigaa jira oo islaamka meelihii barakaysnaayo xarameynku sharifeynka oo dawladda sacuudiga iyo dawladda soomaaliya iyo meelahan waxaan meelaha aynu ka nimi oo dhan malaa waxaad u haystaaba dad aan islaam ahayn miya? saasaa loo fahmi karaa hadalkan. islaam dadku way yihiin laakiin xukun islaamiyaan ka hadlaya. xukun islaami. okay, waad mahadsan tahay cabdi maxamed. ma aha yacnaha inaan leeyahay dadku islaam ma aha kulli gaalo weeye. waayo fikirkaaga si aan loo qaadan yani ayuuman doonaya inaan maya dadku waa islaam alxamdulilah dadku waa islaam laakiin shareeco islaamna kuma dhaqmaan. islaam iyo gaalo wax u kala soocan yihiinna ma jiraan. aad ayaad umahadsan tahay cabdi maxamed oo kasoo hadlaya norway. faarax waxaad moodaa inaynu ka yar leexanay dariiqii oo loo arkaba islaam iyo gaalo, laakiin taan doonaya waxa weeyaan sax in qofku dee uu aaminsan yahay haddii ikhwaan muslimiinkii wax laga sheegayo amba la baarayo amba in islaamkiina wax la yeelayo, laakiin yani ururka ikhwaan muslimiinku muslimiintu bay kamid yihiin. marka muslimiintu dee kolba siday yihiin unbay xaaladoodu ay noqonaysaa. laakiin su-aasha anigaan doonay inaan ku weydiiya waxay tahay yani mathalan waxaynu ka wada warqabnaa in ikhwaan muslimiinku intii ay jireen masar ee ay xukunka gacanta ku hayeen inaad moodo inay gacan saar la yar yeesheen gruub fara badan oo wadaada ah oo laakiin aada u xag jira oo aaminsan inay dowladahan islaamka o dhan muslimiinta o dhan ay gaala yihiin. waxaa jira niman iyaga laftooda waxa weeyaan masalan fikirkii cabdiraxmaan masalan wadaadkii indhaha lahaa cabdiraxmaan ee imika ku xiran jeelka maraykanka mursi in badan buu ku dooday in la soo daayo oo fikirkiisa loo arki jiray inuu yahay fikir inkastoo markiisa horeba ikhwaan muslimiinka laakiin malaa markii dambe malaa jamaaca islaamiyada ama ururkii xag jirka ahaa ee qaraxyadii samayn jiray buu kamid ahaa. marka ma la is oran karaa waxaa lagu haystaa ikhwaan muslimiinka waa intaas arrintu ma aha arrin islaam lala dagaalamaya intaana telefoonka inaan u gudbin. wax way cabdiraxmaan hadda intaa ay tahay haddaasi wax sharaf bay ugu tahay sax wanaag iyo waxay u tahay taariikh cusub ay u tahay xumaan uma aha sax sidoo hadda ninkan cabdiweli uu sheegayo way sidaastay hadday iyagu sheekh cabdiraxmaan oo kale ay iyana la soo daayo oo ayna qarinin oo ilaa ninka dulmi baa lagu haystaa maraykanka ku haystaa dictatornimo ku haystaa sida uu sheekhu cabdiweli uu sheegayna waa sax weeyaan cabdi maxamed uu sheegayna waa sax weeyaan hadday marka ikhwaanku ay saa yidhaheen de waa sharaf weeyaan taas irhaab ma aha maya haddii nin fikirkiisu aaminsan yahay inay qaar yihiin gaalo dowladahana ay gaala yihiin gaal wuu jira gaal iyo muslim waa la kala yahay gaaladana majority ah awoodana iyagaa haysta waana sida uu cabdi maxamed u sheegay weeyaan lama diidi karo maraykankana ka taliya ka atooreeya wuxuu adduunka isaga ka atooreeya hadda isagu weli muusan odhanin waa irhaab iyo muusan odhanin sacdidiinkaad madax aad carabta baabtay oo ka ah macadka ibnu khalduun ninka madaxda ka ah yidhi maraykanku soo wada buuri ilaa hadda muu ku dhaafay waa caruurta barbaarinaya ku fashilantay way muslimiinta ay diideen waa nin u shaqeeya waa la ogyahay sacdidiin moogta 70 jir 80 jir weeyaani intaa wuxuu u ololeynayay in dowladda dimuqraadiya markii mursi la doortayna wuxuu u ololeeyay militariga inuu taageero صح isagoo kaliya maaha gruub badan baa jiro aan ku dhamaystaa cabdiraxmaan ikhwaanku waxa way islaamka sida uu yahay samxadiisa cadaaladiisa sinaantiisa ayay cabiraan cidna cadow kuma aha moogta su-aashan doonayaan ku aan ku dhamaystir horta waxa way marka hadday ay yidhaheen hala soo daaya dadka goontanamo ku xidhxidhan wadada la dulmiyey taasi waa sax weeyaan su-aashaada dhinaca kale goontanamo maaha maraykan buu ku xidhan yahay waa nin lagu hayo cadayn inuu doonayo inuu qarax ka sameeyo maraykanka arrimo noocaas ku haysta marka arrinta anigu maba doonayo inaan galaba laakiin anigu taan doonayo waxa weeyaan intii ay xukunkooda jireen dabac ayay muujiyeen eg imaka ikhwaanul muslimiinka iyo ururka alqaacida meelo badan bay ku dagaalamayaan waxay ku dagaalameen Falastiin oo Xamaas iyo iyaga isku dhacay waxa isku dhacay Ciraaq wadaadada ikhwaanul muslimiinka iyo qaacida way isku dhaceen Suuriya imaka ururada ugu badan ee imika la dagaalamaya qaacida waa niman ikhwaan muslimiina anigu taa ma diidani laakiin masar xukuumadda masar dabac bay muujisay oo waxa weeyaan
ina ayman dawaahir walaalkii iyo gruubkii taageersanaa qaacida oo calankii madoobaa wata ayaa meel kasta lagu arkayay marka may dabac may calaqal fikirka ay tirado war fikirkaas waa qaldan may qabato ilayda dawladda hayda raalli عبد الرحمن taas adiga gooni ku taaragtay nooc soo kale anu aragti marnaba ma hayo waa su'aalaha la isweydiinayo ma jirto su'aashaasi Falastiin kama ina dagaalamin ikhwaan muslimiin iyo qaacido Falastiin waxa ka jira niman mujaahidiina laba xaraka ka jirta xarakad Xamaas جناح اللي يراهدو القسام أي مجاهدين أو دقالما هو هيستوي جرا واحد جرت النمن اللي يراهدو المجاهدين أو اللي يراهدو شعلب ومدح كياهي ولا بحركة وجهادين ويان أدون كده موجود ما قرناش وين كوي كسر لكن حاليا دي مدونين قال لكن لابد يكون لابد يكون يستقالكي واحد لا دقال كمو دحين فلسطين غزة ما قاعد كم جرت غزة ما من قاعدة دي تاجر أنا حتى قارب ضلنا يعني فكركي أيمن الظواهري أسامة بن لادن سؤال أم كجواب الشيء وقف كمستمع وفهمه هذا الرالي سوريا وحلي هذا إخوان مسلمين أو جهاد أو اللي حزبي أو دجال لما أفراد ويكجر وشعبي سوريا ولا موضوع دجال لما زي ما ذكرني جبهة النصرة وأن من تيار كان سلفي جهادي اللي هذا كل ميوي يعني وحي كميدين قاعدة كميدة وحلا وحي أبو جهاد ولا ما كميدة ما قرناش سوريا كم جرى واحد إخوان اللي هذا أو بورك هايستا لكن شعبي كميدي يعني كمله بورك هايستا لكن أورك إني إخوان هي ميجا قريبة ما جرى ما حركة التوحيد ما هو كميد ويا يعني ما دي شاخد حركة التوحيد وكجرت أخوانك وأنا شاكتها وبسد كودد ما قشنا وبيجا وشاكنا يا با إني فكرك إخوان أنا كهذا ما يمقع إخوان كيستان لكن فكرك إخوان كهذا يا أساسا ما يمجر أنا قاعد ساشد فيديو حوي أنا قاعد تايدا كهذا يا مجرى وحلي سوريا حركة الإخوان المسلمين oo la dagaalantay oo xisbi gooni ah ma jiraan waan ognahay min alif ilaa waxa jirta shacbiga kamid yihiin صح shacbigu meesha maray su'aashii dabac marka ma muujiyeen naga dhaaf arrimaha kale dabac ma muujiyeen ma ida su'aashu waxa keenay dabac bay muujiyeen ma ina muujinin ma waqtiba u meeynayn assalaamu calaykum daawada ku soo dhawow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso عبد الرحمن بالله ولا راح كصاحب يا السويدن وأنا السلام يا ديك أيو السويدن ما كصاحب يا ولد وانكم بقرا ولا لها سودا رأي جاجا حاول الواحد يا ديك يا دكتور كم وانا دي السلام يا وحان فكرة إذا كدي بنا يا موقتها بارستا كو أورك إخوان المسلمين كيوك صح warta sida maxaan ku dhahdaa dad badan oo maxaan ku dhahdaa fikradooda dhiibtay ama doctorkuba uu sheegay waxa weeye waxa lagu eedeeyaa muslimiinta inay cunfi iyo maxaan ku dhahdaayay ay ku adeegsadaan laakiin waxa caddaatay markii ay adeegsadeen maaragtay dariiqadii reer galbeedka ay ku baaqi jireen ee codaynta iyo warqadda iyo voodka xitaa inaan lagu nabadgelayn moogta waan gartay oo dadkii maxaan ku dhahdaayay codeeyey sida maxaan ku dhahdaayay sagaashanaadkii Algeria ka dhacday fiis sida ka dhacday maaragtay Turkiga Najmuddin Erbakan sida ka dhacday hadda 2007 moogta Gaza sida ama Falastiin ba aan idhaahde sida ka dhacday Masar sida ka dhacday Tunis maxaan ku dhahday dhammaan wadamadii maxaan ku dhahday qaatay nidaamka dimuqraadiga ee cunfiga intay halkaa iska dhigeen maaragtay warqad iyo vote moogtay ku codeeyey in haddana la yidhi maaragtay tiinu ma soconayso moogtay waayo wax kale maskaxdayda kaga jira صح maadaama wax kale maskaxdayda idinkaga jiraan laydinma ogolo dimuqraadiyadda caadiga moogtahay laakiin arrintan Masar ka dhacday waa la inqilaabay laakiin way socon laadahay moogtay waxaan aad ugu faraxsanahay moogtahay inaanay nimankii militariga ahaa u hirgelin inay fushadaan oo dal maxaan ku dhahdaa degan oo maxaan ku dhahdaa waxay doonaan ka sameeyaan aanay noqon shacbigii ka hor yimi oo la istaagay oo dowladoodii socon weyday wax kastoo lagu kharashgareeyo cabdiraxmaan madoo inaan taariikhdii ikhwaanka iyo masar iyo galno waxaanu ka hadlaynaa UK iyo ikhwaanka baaritaanka arrintaasaa muhiim inaan awoodda saarno وكان موضوع أيق ولا هذا أدور عليه أنا كاد أحكي لنا من دونين والله وصح ويا ما ركتي waxaan qabaa maogtay inay saameyn ku yeelan karto maogtay masalan
soomaaliya oo kale maaragtay dadka yaryar ee dhaqdhaqaaqa ee maxaan ku dhahdaayay ganacsatada yaryar in lagu shaabadayn karo iyaga laftooda maaragtay maadaama ay xiriir dhow la leeyihiin dawladaha khaliijka maogtay sida dubai oo kale maaragtay ama imaaraadka oo kale in lagu shaabadayn karo maogtay magacaas oo la odhan karo ingiriis iyo maraykan baa soo shaabadeeyey oo sidaas weeye oo hantidooda lagu qaadan karo maogtay sidii shirkado hore oo ganacsataha oo soomaaliyeedba magac loogu qaatay maogtay intaasaan aaminsanahay inay ku banaysan karaan maogtay dhaca waanad mahadsantihiin asalaamu calaykum aad ayaad umahadsan tahay cabdiraxmaan isagu fikirka halkaas ayuu dhigay marka fikirka waad ku raacsantahay miyaa تقريبا يعني واسد هذا الكوديجي يعني وحو كديجي يعني لبا صراع وهذا الصراع ايديولوجي اسلامي مقارنه سيو كديجي موقته لكن موضوعين وحوها اخوانك iyo baarida ay ku sameynayso dawladda Ingiriisku صح inta in leeg buu ta'thir ku yeelanaya ma garanayso raad inta leeg buu ku yeelan karaa raad inta leeg ana waxaan aaminsanahay arintaasi wax badan inay ku yeelanin ikhwaan ahaan صح ama kuwan halkan jooga ha ahaado ama kuwa halka jooga ahaado laba arrimood oo dartood ikhwaanka waxay yihiin adduunka oo dhan in waliba ka dharagsan yahay waa koow ikhwaanka oo soo dhaweeyo baaritaankii لأنه نينك مجرم كأما نينك توجع أيام مركي وحبالة سمينية بعد بالوجو سميني اللي هذا أيام عرر وعبسده صح أما قف كان سكوك الصونين بعد ديدا وح لقيتهم سيء هاي إن لقى جاجري ولا جبارة موقته كأخوانك ويسود دويين صح أنا هذا وحن جنرال واحد جود بنك هذا ما قرنيش مركا وحنا نبغى من سنة ودن كان وحوي وودن كريستيشنا وحكى جرا يعني البرلمان بقى جرا محكمات بقى جرا إخوانكم مدام أي واحد أيهين ولا كان قرصونين وحنا ملانيا تأثيركم أيه لنيش إنجليز كودك إنجليزك وحرادك يا لنيس مجرته كيف متعيد إن ميال السلية هي دبد وحبا أيا كوسكرين يا إن أي أرنتا أي سمايان دولة إنجليز وأنا هين بجدود waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan haddaan dabjirin qiiq ma jira la yidhahdaa ka badan 40 sannadood ayay ku noolaan ikhwaanku halkan waana la ogyahay dawladda ingiriiskuna si aad bay u ogtahay waxa keenay waxaan isleeyahay waa arrintaas haddaan dabjirin qiiq ma jiro dawladda ingiriiska waxaad moodaa in lagu saaray cadaadis badan inay arrintaas inqilaabka iyo wixii raacsan marka inqilaabka iyo wixii raacsan oo dhan ba ayaa masalan aduu sadada inqilaabka yani sacuudiga oo kale ma aan hadda magacaabi ma hayo dawladda ingiriiska waxa cadaadis ku saaray nimanka militariga ah iyo wixii raacsan marka wala wada ogi wixii raacsan cid kasta ha ahaadeen okay telefoonka qabanaya ku soo dhawow daawad halkaad ka soo hadlaysay magacaaga hello magacaaga walaal halkaad ka soo hadlayso assalaamu calaykum magacayga waxa weeyaan Huda waxaan ka soo hadlayaa London ku soo dhawow Huda waxaan rabaa inaan fikirkayga ka dhiibto barnaamijka ku jira horta kolka horeyso ikhwaan almuslimiinka like yani ma dhihi kari ayaga qalad way sameeyaan qaladna ma sameeyaan because ilaahin baa everything but marka ruux ku dhaho gaal ah maxay ahaydey ikhwaan almuslimiinka waa inaa la baaro whether it's London or meel kaleeto adduunka ku taala clearly waxay ku show garaynaysaa inuu muslimka ruuxaasi taagad garaynayo midda kaleeto hadduu marka laga sheekeynayo terrorist and all this stuff laguna magacaas muslimkana lagu darayo maxay muslimiinta ooga sheekeysan waayeen the reason oy maxay hayday gaaladana markuu nin for example askari gaal ah uu ruux muslina dilo like the one of Afghanistan familka dan shuu gareeyay maxay dhaheen they didn't say he was a terrorist waxay dhaheen oh he was drunk he had a family problem dhibaataa haysatay so hadduu the same thing sameeyo ruux oo dhahaya maxay hayday muslim aan ahaanba magaca ilaahay sheeganayo diinteena ruux inaa ruux dishid ma ogala laakiin ruuxa markuu diinta islaamka sheeganaya asagoo sheeganaya hadduu ruux dilo waxay dhihi oh waa terrorist so that thing ma laga sheekaystay muslimiinta no I don't think inay ka sheekaysteen midda kaleeto dawladaha reer galbeedka haddaa u fiirsatid miyay ever intay fariisteen dheheen dadka like alqaa'ida loo bixiyo may dheheen xageeda xoolaha ay ku dagaalamayaan kasoo galaan they never ask themselves and there's a reason behind it because ayaka baa wax ka og my other point is like Palestine ikhwaan almuslimiin like madaxweynihii Masar waxa loo xidhay one of the reason was because markuu electionka u tartamaya I remember I was watching it wuxuu dhahay waxaan furayaa maxay ahayd
albaabka Rafallah ee Palestine ay ka gudbi Rafah. karaan si ay u gudbaan wadamada sida Masar oo kale ay usoo galaan markuu saas dhahay way ka xanaaqday Israel ilaa within a week baa lagu xidhay markii la furay Rafallah okay huda da'daadu waa imisa isma jirmaatay 17 oh Masha. 17 na waa tahay waxaasoo macluumaadana waad haysaa annagaaba marka wada halkan soo fadhiisto lagu wareysta soo maaha Absolutely. Absolutely. I wouldn't mind, but the thing is, I just want the ummah to wake up. The thing is, we don't understand waxa ma fahmayna dadka muslimiinta ma fahma dareemayaan dadkan in ayaga ku shaqaysanayaan like hadda inaka muslimiinta xoog bay u ceebaysan yihiin because Palestine baan ku daawanayna Mareykana Israel oo ilmaha Falastiiniga ina la dilay u ogolaatay waxada marka terrorist maaha nin oo xuquuqda ku xadgudbaya maaha laakiin ka muslimka ah haduu wax sameeyo asagoo magac muslim wata waa terrorist xuquuqda ku xadgudbay waxaasoo dhan min ahayn wax oo inaynu fahana ah dadkan gaalada inayna dan inoo heenin anaka ina target gareynayaan inaka ina hal wan noqono hal uma just like islamku uu diinteena ay meesh ina barayso huda aad baad ugu mahadsan tahay sida wanaagsan aad nooga soo qiimaanahay inaan kaa xiro laakiin timeka ayay noo saamaxayn intaas oo dhan aad baad ugu mahadsan sida wanaagsan nooga soo gashay Faarax meelo badan bay ka hadashay laakiin waxay tiri waxa la isu weydiin waaya horta hadiiba ay xitaa yani ay qaldamaan qof muslim wuxuu baa looranaya waa terrorist iyo arkalis oo mesela imaka deekhwaanka waa waxyaalaha ay keeneen ay leeyihiin saddex noo Korean oo la dilay waa in la baaro maxaa kuwa kale ee markay wax dilaan loo yiraahdaa amba maskaxdu wax ka qabaa amba wax xanuunsanaya su'aashaas aad inoo weydiisay Okay. horta waxaan leeyahay the great girl Huda. Thank you very much. Absolutely Yahweh waa very intelligent girl weyn. Absolutely. Thank you. mar labaad baan ku leeyahay. والنبي عليه الصلاة والسلام وحده من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم قف كمسلم كأما قبرها هذا مويلها هذا أو أرمها مسلمين تأن كمرجين أو كحمانيني قف مسلمة ما صحب النبي عليه الصلاة والسلام وحكي تسنيسا أنا قبل إيمان كذو يدرن كذ أدرسرين وياي هذا نصور نقضى تعليق أما كومنتس كهدا وصح ويانا ومو بهنا بين محلقين دي بعد يصير مقطع لكن كلية وحن ربعوننا هذا محمد مرسي ايديولوجيديسو waxay ahayd absolutely ma ahayn madaxweyne caadi ma ahayn wuxuu ahaa xambaarsan hamiga islaamka ee saxda saadartay say Huda sheegtay wuxuu yiri problemka ugu weyn ee rabo inaan xaliyo waxa weeyaan waa dadka adduunka oo dhan isugu tagay adduunka oo dhan markaan leenahay waa nimanka adduunka haysta sidoo ninkii sheegay adduunyada ay u rarantay iyaga maanta أنا قبضتين تأكسه رجيم بلا ذنب بلا جريمة بلا أي شيء يعني ما قرنيزه دت كاس عن كقاضية دت كاس الناس سعوتهم فلسطين مدفرة بدن واحد كم إذا هي قيب كم إذا مصر بي كم إذا هي تاريخ زي شيء مركا أنت أيهود تري واحد لقدر رأيه ما أنا مثلاً أضبط مع سنت هاي إن سؤالش عن دوني إن مثلاً أن أي تهاي تلفون هدو كتير كسر دو ذاك كسر سيء مقعة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام marka hore magacaaga halkaad ka soo hadlayso magacayga waa Cabdiqaadir Shiicari aan ka soo hadlayaa Jarmalka ku soo dhaw Cabdiqaadir waa ku dhawahay kulay waa barnaamij horta qiimo badan horta waxaan u hambalyeynaa gabadhii hadda ka baxaysay yareed fikradeeda ma sha Allah leeyahay ilaaha ku dhooro tan kale horta arrimaha hadii aan ka hadlo oo ugu muhiimsan horta dadka wax fahansan waxaad u maleysaa inay yar yihiin horta oo aan badnayn ama maartay wax ogeen laakiin iimaankoodu uu aad u yar yahay tan hadda ka dhacday oo kale waxaan soo qaadanaa aniga Masar oo kale waxa ka dambeysay hadda dhacdadii ka dhacday Palestine oo kale oo ay ku heshiiyeen Hamas iyo Fatah si nabada u heshiiyeen meeshii la rabay in la taageero hadda waxaan arkaynaa cago jugleen ah waa idin weerari doonaa oo kale Mareykanku dhahayo kale waan ka niyad jabsanahay heshiiskaas kulay macnaha dimuqraadiyada ay sheegaan waxa waaye dad ay ayaga u adeegayo danahooda u fiirinayo hadii ay arki waayaan wax qof masaalixado dhinacooda wada macnaha waxay u arkaan cadow ama maaragtay qof xun kulay waxaan dhiilayn marka waa arin oo diiniyan ah waa laakiin ay macnaha diinta macnaha ayaga
ku daciifiyaan laakiin ma daciifin karaan oo allah diintan ciseeye oo kor u marka qaaday miyaan ka fahmi leenahay karaa hadda haddii cabdulqaadir soomaaliya oo kale tusaale usoo qaadano cabdulqaadir miyaan ka fahmi karaa way kala hadalkaaga xirxiran tahay cabdulqaadir maanta fikrado gooni badan baa la wataa haddii saas oo kale falastiin maanta ay u heshiiyaan ay gacmaha isqabsadaan waxaa soo bixi doona cadowga runta ah oo dhihi doono kuma qanacsani hadda waxaa laleeyahay ha heshiiyaano nabad ha dhistaano waan caawinaynaa laakiin beri ka maalin waxaa imaan doonta in la dhaho madaxa laga tumaa labadii isla hadasho wanaag iskugu timaado marka ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo muslimkana ilaahay ha xoogeeyo aad baad umahadsantahay cabdulqaadir oo nagala soo hadlayay jarmalka sidaad moodo dadka hadalkoodii arrintii baaritaankaba aada ugu waacan maayaan waxaad moodaa inay arrintiiba leeyihiin sheekadu ikhwaan ma aha waa islaam la dagaalamo kolba tusaalooyin kale keenayaan adigu wax miyay kaaga bixi karaan miyaad oran kartaa ikhwaan muslimiinka laftooda waxaa laga yaabaa inay qaar aanay ogeyn ila iyagoo hogaamintii bay wadaan sidaynu ka wada warhayno ninkii maxamed mursi hogaan buu ahaa murshidkii hogaan buu ahaa jeelashiiba ayaa lagu wada guray marka jeelasha lagu guro ninkii madaxa ahaa ee hogaamiyaha ahaa dee dhalinyaradu way qaldami karaan way ka bixi karaan dariiqii ay ugu talagaleen mis oran kartaa qaar ka baxay oo ikhwaankana ku tirsan ayay inta qaladaad sameeyeen bay ayaa keeni kartaa dhaawac ku keeni kartaa inay adduunkuna ay u arkaan baarka xuseen ikhwaan qaybta koobaad shaash cabdiraxmaan waxay ku tusinaysaa dadkan sabactamaya ee soomaalida ah wacyigooda iyo aqoonteesu meeshay gaadhsiisan tahay waxayna ku salaysan tahay haddaan dab jirin cabdiraxmaan oo qiiqma jiraa liya soomaalidu tirahdaa way ogi dadkani waxay ogyihiin waxa keenay in la yidhahdo ikhwaanku waa terrorism waxa keenay bay ogyihiin therefore isku mashquulin mahayaan maxaa ka dhalanaya iyo maxaan ka dhalanaya isku mashquulin mahayaan maadaama ay ogyihiinba waxan hadalkan meeshuu ka yimid iyo waxa ujeedadiisu ay tahay hadday ogyihiin isku mashquulin mahayaan xadadkan hadda dhacay waxay waa qanaaco ay gaareen gabadha yare 7 jirka garanaysa waxa keenay waxan talabaad waxa weeye maxamed su-aashaas ikhwaan muslimiinku maaha maxamed mursi iyo maxamed badiic ma aha masar markaan ka hadalno malaayiin weeyani malaayiintaas waxay ka leeyihiin qaybo fara badan sida ururada adduunyada ka jirta oo dhani ma garanaysa marka hadday dad dhalinyaro qabtaan khalad ma samayn karaan iyo ma samayn karaan waxaan isleeyahay waa su-aal tanabu ah markeedan sugaynaa waana dhici karta mana dhici karto dee taasi waa su-aal tanabu waana dhici karta mana dhici karto laakiin waa dhalinyaro macnaheedu ma aha qofkii dhalinyaro ee haddii laakiin ay dhacdo ay soo ogaadaan ikhwaan muslimiinka dhalinyaradu iyo khata dhalinyarada yaryarkii waaweynka waa loo sameyn yahay waxaa jirta dad dhalinyaro oo aada uga activesan oo uga wanaagsan dad waaweyn oo odayaal ah kusoo dhawow waa daawadihii ugu dambeeyey magacaagii halkaad kasoo hadlayso fartuun oo kaasoo wacaysa Egypt fartuun baaba Egypt baa waxda maasha Allah kusoo dhawow fartuun waa ku dhawahay aad baa u mahadsantihiin barnaamijka aadka u qiimaha badan waa idinkaga mahadcelinayaa marka koowaad marka labaad ikhwaanka wuxuu ka tirsan yahay horta kooxaha islaamiyiinta ah khaasatan kuwa aaminsan in laga qayb galo xukunka oo habka dimuqraadiyadda aaminsan waxaan dhihi karnaa ikhwaanka lucbadii ay gaalada dheelayeen oo la ciyaaray وبعدين markii uu ku guuleystay intikhaabaadka wajigoodii kale ay la soo baxeen reer galbeedka oo ahaa in qof islaami ah aan waxba loo ogoleen sida hadda Masar ka dhacday Falastiin ka dhacday iyo Jazaa'ir ka dhacday marka waxaan dhihi karnaa reer galbeedka waa dad laba af ku hadlayo marna dhahaaya dimuqraadiyadda waa inaan hirgelinaa haddii dimuqraadiyadda ay soo saarto qofeen ayaga jecleenna dhahaaya dimuqraadiyad ma ahan taasna waxaa looga baahan yahay ummadda muslimka inay fahmaan in waxaasi ay tahay gaalada waxay wadato dimuqraadiyadda annaga aysan dan noo ahayn kan danta noo ahayn uu yahay sharciga ilaahi subxaana watacaala waxaana umaleynaya in ikhwaanka markaan ay tajrubo qaateen ayna ka hari doonaan habka dimuqraadiga okay aad baad umahadsantahay fartuun adiga laftaada malaa da yarta baan filayaa soo maaha dadaada waa mise aniga waxaan jiraa 21 adiga laftaada waad yar tahay meeshiina waad dhex joogtaa may jirtaan imika yani imika mar haddaad masar ba aad nagala soo hadashay waxyaalaha imika yani baaritaanka ay doonayaan ingiriisku inay baarhaan waa hogaamiyaasha yani kasoo yaacay masar yani waxa weeyaan ikhwaan muslimiinka ah ee halkan yimi marka idinku mar haddaad fartuun tahay oo saad muuqataan dareensanahay in aad fikirka ikhwaanka aad leedahay waa lagu qaldamay miyaad is leedahay soomaali badan ba halkaa joogto oo fikirkaa aaminsan ها وآمنين ضد بدن المسلمين أنا جب وآمنين جري لكن واحد درسنا إن متقنا ضدك
gaalada ah aysan marnaba aynan ogolaanaynin dadka muslimiinta inay marba kor u qaadmaan laana ikhwaanka manhajkooda ayaga waxa waaye waa la ogyahay in islaamka xalka uu yahay laakiin waxaa lagu kala iyaga iyo jamaacadka kale ku kala duwan yihiin dariiqada loo marayo ayaga dhanka dimuqraadiyo u mareen ayagoo ku raali gelinayo maxaa la dhihi jiray reer galbeedka laakiin arrinta waa ku fashilmana hadda waxaa waaye in laga wareegsado dhankaas aad ayaad u mahadsan tahay fartuuman kusoo khatameynaa oo runtii nagala soo hadlaysay masar waa halkaba ay ikhwaankuba kasoo bilaabmeen xasan ulbanna iyo gruubkii ugu waaweynaaye murshidiintii oo dhan iyo dhammaan aqoon-yahankoodii hadday tahay sayid saabiq ninkii fiqhi sunna qoray ninkii kale maxamuud cizat ninkii kale waxa weeyaan sayid qutub dhammaan yani maxamed qutub dhammaan yani qaadadii dhammayd halka ikhwaankuba uu ka bilaabmay faarax waxaan doonayaa inaan iska soo gabagabeyno kolley warkii baa soo dhow waxaan doonayaa in su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiiyo su-aasha ugu dambeysa waxa weeyaan sidaynu ka wada warqabno sayid qutub waxa weeyaan waa abul nimankan qaacidada ah sida la sheego yani marka fikirkooda la eego isaga ayaad moodaa inay yidhaahdaan isaga ayaa fikirkaba nagu ilhaamiyeyba kutubta faraha badan oo qoray hadday tahay alcadaala alijtimaaciya hadday tahay waxa weeyaan kitaabkii yani tafsiirka ahaa ee dilaal alqur'aan hadday tahay kitaabkii kale yani kutub fara badan amriika alatii ra-aytuha inkastoo aan kitaabkaaba lahayn in ma is odhan kartaa qutubiyo kalaa kasoo baxay oo fikirkan jihaadiyiinta iyo inay nimankan cilmaaniyiin yihiin islaamna ogoleyn in lala dagaalamo ma is odhan kartaa imika weli way jiraano way soo baxbaxeen gabagabadii gunaanka cabdiraxmaan yani sayid qutbi waxaa la dilay 1966 baa la dilay صح cabdinaasir baa dilay صح alqaacidana waxay ka samaysantay jihaadkii afghanistan صح waxayna soo baxday sida ay qoraaladooda ay sheegayaan 1989 ay soo baxeen inta u dhaxaysa waad garanaysaa dhowr iyo 30 sano ka badan weeyaan marka sayid qutbi alqaacida macallina uma aha manhajna uma aha ayman daahir xukumi jamaa islaamiya ninkii asaas horta ma daahir waa tabiib masri ah oo yemen joogay 20 sano ma garanaysaa qofku marka wuxuu qoro hadduu isagu ku qanacsiga u taalo looma nisbayn karo sayid qutbi baa u ahaa adigaa diidi kara adigaa tacliijin karada ku qanci kara marka alqaacida sayid qutbi meel uu ku qoray jihaadka dadka muslimiinta halaayo oo carruurta soomaaliya gabdhaha soomaaliya shaaha ku karsanaya makhaayadaha hortooda banaanka la fadhiya ama gaaska ku iibinaya nimankoodiina la laayay هل الدين سيد قطب ماله كقرن مثلا دلالنا كم ونقرن معالمنا كم ونقرن الشيخ القرضاوي محيولي رالي هو أديك رالي أي دين كجواب القاعدة مركب وحوي يعني وتيار عصب أو سماي سماي أو السبب جونك سماي سماي مركب إسكو حديتان كود وحسن أبدا اوكي واي لكن محمد كهذا يعون شيخ قرضاوي لفتيس وحويلي يعني فكر يعني مثلا كتبتيس وقري سيد قطب نوع تكفيرية كجري وانا اخوانك مسلمين شيوخ دغوا وين قرضاوي marka adigu dad aaminsantahay laakiin shuyuukhdoodii baa sida telefonkii ugu dambeeyay waana la qasbay ku soo dhawow daawada halka ugu dambeysay waxaan u jeedaa halka ka soo hadlaysay magacaaga waa magaceedu waa Xaj Cali talyaaniga waa talyaaniga ku soo dhawow Xaj Cali waa lagu maqlayaa walaal Xaj Cali والله أرين عصب وهذا ولي يعني هذا كسكر لو كسكر دي وما قرأت مركو أنا مرينا يا ولا مغليا وين هذا الكسير وضع هذا أدور عليها مركو ما حسليه وحيران كليه هنا أوجادان سيدا هنا أوجادان ذاتك مسلمين تا كوا أود بدني كوا أنا أود لهنا حق دقالها يو حق محل سياسة بين أوجادان روانين وحيران حد وقال نقدر نقرأت أوكي aad ayaad u mahadsantahay Xaaj Cali wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa arintan waa imtixaan wuxuu baa la ogaanayaa waa kar la sameynayo oo in la doonayo in soo gabagabeeyna aad ayaad u mahadsantahay Dr. Faarax Sheikh Maxamed oo ah in aqoon-yahan isla markaasina in Malaysia kaga soo baxay jaamacad halkan lafteedana in jaamacado ka dhigdhiga arrimaha diraasaadka islaamiga iyo falsafadeeda aad iyo aad waxa weeyaan ugu takhasusay idinka lafteenu daawadayaal aad ayaad ugu mahadsantahay sida wanaagsan ee aad noo dhageysanayseen aad iyo aad aan ugu mahadnaqayaa waliba in Masar iyo meelo badan dad yar yar ay nagala soo hadleen oo waaqaca jira oo dhan Soomaalidu ma malaayimka aad soo eegtay laakiin waadan yani adduunka kale in hareerihiisa eegto wax sahlan ma aha akhridood waxa weeyaan aad ka warayso aad ay u mahadsantihiin daawadayaal insha Allah ta'ala kulankeena kale intaynu ku kulmi doono Khamiista haddii Ilaahay bayna gaarsiiyo sidaas iyo waxaan idinkaga tegayaa
nabad alla iyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله.